maanta nin walaalkay oo inta hadda jooga ayaa wuxuu ii yiri TikTok lacaga laga sameeynayaa xayisiisa la daawanaya ilaa ay xalay iska dhaafay week hore ilaa ay wuxuu daawanaya intaas oo ku xayisiis ilaa ay hadda lacag ma helin Soomaa ala kulli xal runta idin sheegaya marabta internet ina lacag ka sameeyso internet haddaad rabtid ina lacag ka sameeysto hal way bas aad uga sameyn kartaa halkaas ne weyna ma aha ina xayisiista watid ya been lagu sheegin ma aha ina TikTok intaad furatid video anaga 300 oo kun 600 oo kun ana daawatay $10 xataa ma gaarayso waxa laga helayo yaanan been lagu sheegin runta marabta haddaad rabtid in aad lacag ka sameeyso internetka the only way tariiqa kaliya oo lacag uga sameyn karto waa in aad affiliate market noqoto hadaba ma raba inaan u guda galo affiliate market bal laakiin hanti hadii aad rabtid inaad lacag ka sameyso affiliate market Google garay waxa jiro website-yaal badan website-yadaas waa iska register gareynaya markaad is register gareyso kadib waxaad sameynaysaa product website-kaas ku jiro oo waliba percentage-ka ama bonus-ka ama lacagta aad ka helayso waliba ku qoran tahay waad qaadaysaa kadib goobtaada social media gelinaysa ama TikTok ha noqoto ama Instagram ha noqoto ama Facebook ha noqoto ama meel walba ay noqotaba goobtaas aad gelinaysaa oo ku xayeysiinaysaa markii la iibsado bonuska ama waxaad ka helaysaa lacag ama hadii ay $40 ahayd ama $20 ahayd ba product aad iibinaysid ayaad ugu helaysaa markii aanan runta dil isku sheego wax xayeysiis oo aad daawato oo aad lacag ka helaysaa haba yaraatee ma jirto wax la yiraahdo xayeysiis kare ama sababa kale oo lacag lagu sameyn karo ma jirto qofkii ku yiraahdo TikTok ba lacag ka sameeyana been buu ku sheegay unless uu gift helayo oo live intuu soo gala maanta oran cabaadayo oo si kale uu helo ama game uu ku helayo waa gooni laakiin video ah inta soo gelisid hadii xataa 100,000 200,000 taawad waxa ka helayso waa yartahay so marta lacagna sameeysid bax Amazon tag productigooda si kale waxay siiso affiliate market is the only way intaas way aniga intaan garanayo soo dhawaad